taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Bashiir Cali Amerika iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Sareeyo Guuto Liibaan Cali Yarow oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah u kormeeray saldhigyada booliska ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo iyo baraha kontarool ee laga soo galo magaalada. Kormeerka oo taliyaashu ay ku helinayeen taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo taliyaha saldhigga degmada Baydhabo Gaashaanle Dhexe Mukhtaar Aadan Dugudow ayaa waxay ku soo gabagabeeyeen saldhigga dhexe ee degmada Baydhabo. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Bashiir Cali Amerika iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Sareeyo Guuto Liibaan Cali Yarow ayaa goobta kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwaas oo ay ku amaaneen sida ay u sugeen amniga magaalada Baydhabo waqtigii lagu guda jiray doorashada waxaana si wada jir ah u ballan qaadeen in la ilaalin doono xuquuqda ciidanka ay ku leeyihiin dawladda. waxaynu rabnaa inaynu ka baxno habqankii waxaan rabnaa inaan ka baxno moryaamayntii waxaan rabnaa inaan ka baxno nidaam darradii 2019 waxaan rabnaa inaan u gudubno ciidan booliisa oo qiimo leh ciidan booliisa oo qab leh ciidan booliisa oo qorshe leh ciidan booliisa oo aqoon raadiya migu raacsantiin ciidan booliisa oo karaamo leh aniga waxa iga go'an idinka Ilaahay intaan meesha jooga ha yaraata badnaato in cadaaladdu meeshan idinku timaado in garsoorkii cadaaladdu meeshan idinku timaado in fasaxa meeshan idinku yimaado in tababarka meeshan idinku yimaado inaynadan marnaba idinku fikirin aniga xamar ma jooga galkayga xamar u yaallaa maxaan meesha ka qabanayo migu raacsantiin garsoorkiina meeshan ku heshan hadii la raali ka noqdo wax aad iyo aad loogu farxo waay wiil dhalinyaro ah oo waqtigiisa u huraayo wadankiisa oo asaga uu ka soo jeedo ama wadanka Soomaaliland waqtigiisa u huraayo waa wax lagu farxo waay laakiin booliska iyo ciidamada kale waxay ka kala duwan yihiin booliska waxa la sheegaa inuu yahay sharci socdo askari boolis iyo askari military markii la arko askari booliska waxa la rabaa shacabka inay asaga xaqiisa ay u cararaan sababtoo ah sharci ilaaliyo waay sharciga la sheegayo ama qawaaniinta la sheegayo waa boolis waay askariga booliska haduu toosan yahay wadanka sidii uu ku toosay marka waxaan aaminsanahay haddaad idinka aad toosan tihiin nadaafadiina ay fiican tahay amaanka aad sugaysaan dadka xoolahooda ay idinka nabad galayaan waxaan aaminsanahay magaaladaas wax kale oo loo baahan yahay ma jirto sababtoo ah shacabkan oo adigu kula shaqeynaa wax walba ay dhici rabaan aysan dhicin la rabo in la soo maleego shacabka markaas wuxuu ku qasban yahay inuu adiga uu ku soo gudbiyo. Siraaj Shaysa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.